يا ولي الله هذا واقفوا بالباب ماذا sheekh cabdiraxmaan ibnu cabdilaahi wuxuu ahaa sheekh caalim ah oo qarnigii 19aad wuxuuna bartay dad badanna sii baray diinta gabayada nabi ammaanka ah iyo faafinta diinteena suuban sheekh suufi wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho 1245 hijriya halkaasi oo uu ka aasaasay dugsi islaamiya oo dhigaal xusuuseedka taariikhdiisu ka mid yihiin Uways al-Barawi wuxuu qoraalo badan ka sameeyay mustaqbalka muqdisho iyo cilmiga diinta wuxuuna qoray buugaag caan ah sida sajjarad al-yakiim kasoo xirfadiisa aqooneed sheekh suufi waxa loo yaqaanaa laguna xasuustaa dhexdhexaadiye weyn iyo dib u habeeye dhaqan da'da 78 sano ayuu ku dhintay sanadka hijriyadu markay ahayd 1323 wuxuuna dhalay caruur 8 ah oo 4 gabdho yihiin 4na wiilal yihiin hadda waxaan u soconaa inaan booqano oo aan aragno gurigii uu ku noolaa sheekhi weynaa ee caalamka Soomaaliyeed ahaa sheekh suufi oo halkan ku noolaa gurigan hadda aan galayna waxa la sheegay inuu dhisan yahay dhowr boqol oo sano oo aan inta lagu soo koobi karin oo sheekha ka warbixi ka guriga u dhisnaa aan aragno السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد إيه؟ في عندها؟ إيه حاضر. قدامك سرير ترسس بابا شوف سرير تشواتنا. صح. سريرتان. وكسي حجري. سريرتان وكسي حجري. هاي. خل كسنا أنت وين أدنى. كتاب كان والشيخ قري رمتي وقت فوق كهر جلبيجيس waxaad ka ogaan kartaa sida uu u cimriyay kitaabkan waxaan intaan uu ku soo gaaray maxfadkan oo gurigiisa ilaa hadda ku dhex yaala runtii qadan aad arki karto hadda waqadii uu qoray sheekh cali suufi oo sidan ayuu dadka uga soo qayb qaatay inuu ku baro quraan kariimka iyo diinta inteeda kale taba wuxuu kaalin wanaagsan ka soo qaatay oo budhig uu ahaa faafinta diinta wuxuu ahaa hogaamiye diineed sheekh suufi wuxuu wax baray kana faracmay culimo badan oo laga xusi karo sheekh muxudiin macallin mukarram sheekh cabdullaahi qudub sheekh cali yuusuf iyo rag badan oo taariikhda faafinta diinta marka laga hadlayo aad loo weyneeyo haddaba waa kan jeylaani nuur iikar oo ka waramaya taariikhda sheekha jaamacadiisa ama kolleejkiisa sidii ay culimada noo sheegeen ilaa 300 qofooda ka soo qalin jibis dadka mashhuuriinta ugu weynaa waxa ka mid ah sheekh qaasim al-Barawi sheekh aadan maxamuud oo loo yaqaan sheekh aadan oolihan sheekh maxamed faqi yuusuf iyo sheekh cabdullaahi qudbi inta mashhuuriinta la yaqaan markii saan oo kale dhacdo sheekh maxamed faqi yuusuf wuxuu dhigi jiray la taqasbi sheekh suufi lagama sheekay karo waayo waxa ma taqaana oo la koobi kara ma taqaana siiradiisa cilmigiisa wuxuu gaaray waxa kaloo jirta sheekh cabdiraxmaan cali oo warshax ku duugan inuu hal mar sheekha oo mataqaana oo la weydiiyay oo yiri tabiicad sheekhana suufi ka taa khayr qalillah sheekh cabdiraxmaan suufi dhinaca diinta halgankaas uu soo maray waxa kaloo culimada ay sheegaan in dhinacan mataqaana oo wadannimada sheekha wuxuu soo gaaray istimaarkii ugu horeeyay oo Talyaaniga ah ka bacdi Ingiriiska ka bacdi Talyaaniga sheekha wuxuu yiri hadaa wadanka qabsateen annaga waxaan rabnaa maxkamad islaami ah oo shariicada islaam inaan wadankan aan ku maamulo istimaarkii waqtiga jooga way ka ogolaadeen shariicada ayaa intuu noolay ay gaalada haysteen oo mataqaana wadanka ahaada dhaxalka furitaanka arooska waxaa sheekha intuu noolaa lagu maamulay shariicada islaamka ayagoo wadanka gaala ay haystaan intaas ayaa mataqaana waxyaaba ugu weyn oo mataqaana oo ay uu sameeyay ka mid tahay sheekh radiyallahu anhu waxaa lagu xasuustaa culimadu waxay dhahaan wuxuu ahaa sheekhul jinni wal ins waxay cadeeyeen culimada ay kitaabkiisa oo ku qoray intuu qoray inuu insiga wax bari jiray jinnina wax bari jiray aniga waxaan soo gaaray meel la yiraahdo maxaa jaan la yiraahdo oo mataqaana oo ku taalaada meesha imbarijili oo mataqaana dekada in sheekha meeshaas oo mataqaana oo cilmi ku gali jiray oo mataqaana ay la dhigi jiray mataqaana oo yeeras oo gaar meeshaan ayuu sheekha imaan jiray cilmi uu gali jiray sheekh radiyallahu anhu rahimahullah anhu waxa way sheekh wuxuu aad isaga ilaalin jiray maxaa la yiraahdaa in waxyaabo oo aan xalaal ahayn inuu mataqaana oo quuto
xirta kala duwan ee culimadii uu wax baray Sheekh Suufi kuwii ay wax sii bareen dhashooda ah ayaa sanad kasta yimaada halkan iyagoo ka qayb galaya xuska loo sameeyo sheekha waxayna ku soo bandhigaan dikriyo dadku ay la jalboodaan Sheekh Cabduqaadir Macalin Nuur oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada Soomaaliya oo aan kula kulanay qabuuraha Sheekh Suufi ayaa ka hadlaya sida sheekhu uu buddig ugu ahaa faafinta diinta Islaamka. عروضك عربية لو قبيو وحوليه بحور تضبيط توم بحر ويا بحرياشة قصيدين كلها اللي في اللغة العربية مركز الشعر مركز شعرك عربته تضبيط توم كذا النبي وقام معنا صلى الله عليه وسلم متكستو بحر كستو النبي وقام معنا صلى الله عليه وسلم عربية أو فصحى كنت كسوال الضبعي أو قصيدين كسوة دقيقة على دل العباد إلى سبيل الرشاد مركز الحمد لله رب العالمين هذا وحكى الله فيرين كاس اللي فيري كاس أبوك وفلان بقى المجيسة بس يدوين كنا يجوا وكمان عليه الصلاة والسلام يو علومات أو شريعة هذا بلاي أنتوا طريقة هذا سيس كده شريعة هذا أو بلاي كتب هذا اللي قبرنا الشيخ جزاه الله خيرا تفسيرك وآخرنا فقهك وآخرنا حديثك وآخرنا هي مقدشان بركة هو هاي وقتك ونولاي مركو أنتنا بركة هو هاي الله ونحرسته مركا بريوا بنام بحيسة دي ليرة ومدى الصومالية أيضا كلا سعنين اعتمادا محايا دينك وعادتك وحمدها دينك وعادتك وحمدها مركا الحمد لله رب العالمين خير إيه بركة إيه هرمر عن صومالي ورجينا دولة الصومالية الشيخ زيارة أنا وجوجنا الشيخ بركيس إلهي وحنقول ديننا أنا دولة ذلك أنفعه وذلك أمان كيس سكته وخير كونا خبطه وذلك من نميز هرمر كذا سوء لسن إلهي كذا ما صومالنا نحن دار ما يعني خير برتان تاجرا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة كستا تاريخ لباتني تضرب لباتني زي لات سجال سنة يا الله حساء أو الله كرامية وحنا ضد كان أي سجل كلمة قبل الله ضلك كلمة عن ضد كإيمانية مجال مقدسه ما دام الشيخ هو جامي الدينات ضد أنت عن لاك هذا أدرك كرتو وحيالكن أوجوجان إنه وينيان شيخة wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta
ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Iimaan Cabdulaahi Cali ayaa sheegay in mar kasta tahay in la xusuusto culimada Soomaaliyeed inaan maanta xusno xuskaasi wuxuu la mid yahay inagoo xusayna inta waalid ina dhalay inta culimadeennii waaweyneed ina bartay diinta islaamka annaga oo xusaynay la mid tahay sidaas daraaddeed horta niyadda aan ku qabanno maanta waxa aan u oomanahay oo dhibaato weyn aan u qabno waa nabad innagoo intaas isugu imaan karna maanta hal meel oo isu sheegi karna kulli wixii wanaaga isna fari karna wanaag iskana reebi karna xumaan dhibaatooyinka maanta ina haysta nin walbana uu dareemi karo inuu ilaahay inaga saaro inaan niyadda ku wada qabanno waxaan niyeysana innagoo dhan oo intaa tira la eg waxaan u malaynayaa ilaahay uu inaga aqbalayaa waxaa suuragal ah in malaayiin awliya ahoo ilaahay uu raalli ka yahay ducadoodana uu aqbalayo inay nagu jirto maanta inta meesha joogta haddii hal mar daqiiqad ay fikiraan oo niyaddooda ku qabtaan ummaddan inuu ilaahay niyaddeeda isku dumo ilaahay uu isku dumayaa ilaahay haynoo aqbalo ducada aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idinka gaarsiiyo kulleyba idinku salaamo dowladda madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre oo dhammaantood aad ay ula weyn tahay meel kasta oo la isugu yimaado oo diinta islaamka lagu weynaynayo jeclaan lahaa inay iyaguba joogaan laakiin haddaan joogno way joogaan meesha adinkoo dhan aad joogtaan iyaguna way joogaan maanta waa maalin aad iyo aad u barakaysan goobtaan joognaahina waa goob barakaysan waa goob ay ku hoobanayso naxariista ilaahay iyo raxmaddiisa waa meel ay iskugu yimaadeen quluub aad iyo aad dayib ugu ah oo ku camiran dikriga ilaahay iyo xuskiisa waa meel lagu xusayo ilaahay weligiisa maxaa yeelay dikriga iyo xuska saalixiinta naxariistaa ku soo degta salafku waxay odhan jireen sida culummadu ay noo soo guuriyeen cinda dikri الsaalixiina tanzilu الraxma wa cinda dikri illaahi yanzilu الridaa saalixiinta ilaahay marka magacooda la sheegayo ama la xusayo xuska marka la samaynayo saalixiinta waxaa soo degaya naxariista ilaahay magaciisa markii la xusayana waxaa soo dega raadi noqoshada ilaahay halkan waxaa maanta oo dhan lagu xusayey ilaahay subxaanahu wa tacaala allah iyo laa ilaaha ila allah kelimad la yidhaahdo tan ugu fadliga badan ee ah kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah baa lagu celcelinayo wax lagu xuso waxa uu ugu jecel yahay ah ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo isimka ilaahay ee asmaadiisa wada kulminaya markii loo naadiyo 99 kale isin ayadoo loogu naadi ay la mid tahay allah ah xuskii ilaahay ee ridaha alla lagu gaarayay iyo xuskii saalixiinta ee raxmaddu ay ku soo degaysay kulankoodiiba halkaan la iskugu yimid idan waxa weeye meel barakaysan oo naxariis iyo ilaahay iyo salaamo ilaahay ay ka jirta weeye taasina waxaa sabab noogu noqday weligaas ilaahay ee sheekh cabdiraxmaan suufi ee u noqday yacsuub soo jiita quluubta noqday markas ama qutbi ay ku soo wada xirmaan quluubul caashiqiin iyo cid allaale iyo ciddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran noqday albaabaha ilaahay nicamtiisa looga gala ka mida albaab ama jaranjaro laga fuulo ama taraqi ruuxiyo lagu gaara ilaahay subxaanahu wa tacaala noqday kulankan fadligiisa ilaahay waxaan uga rajaynaynaa sheekh cabdiraxmaan suufi fadligiisa ummaddeenna dhibka haysta ilaahay inuu uga dulqaado quluubtoodana uu iskugu soo dumo kelimadoodana uu ku mideeyo sayidii sheekh cabdiraxmaan suufi waxaan u malaynayaa cid intaan ka mid ah ee mucaawino ka soo doonatay maadiya inaysan jirin mid ruuxiyase waa loo soo doontay intaan mid lacag la soo siiyey ma jirto 116 sano bay ziyaaradani soo socotay duruufta ugu adag dalku markuu marayayna intaani in la midaa imaanaysay taasina waxay tusaale u tahay jacayl ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qabo lahum albushraa fi alxayaati addunya dadkii alla uu yidhi inuu yahay bishaaray adduunyada ku leeyihin wa fi alaakhira rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi
bay asxaabtu weydiiyeenoo waxay yidhaahdeen axad annaga naga mid ah ama addoommada ka mid ah camal wanaagsan samaynaya dadkiibaa ku ammaanaya oo ku jeclaanaya wuxuu yidhi tilka caajilu bushra almu'min mu'minka bishaaradiisii soo degdegaysay weeye intaan imaatinkoodu marag waxay ka tahay sheekh cabdiraxmaan suufi weli owliyada ilaahay ka mida inuu ahaa qubuul qof ardada loo soo dhigay wuxuu xadiiskii rasuulkeennu salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu ku yidhi idaa axabba allahu cabdan naadaa jibriil fayaquulu yaa jibriil innii axbabtu fulaanan faaxibbah fayuxibbuhu jibriil uma yunaadi ahla asamaa fayaquulu ina allaha qad axabba fulaanan faaxibbuuh fayuxibbuhu ahlu asamaa uma yuudacu lahu alqubuula fi lardi buu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay qof hadduu jeclaado magiciisu intuu ku dhawaaqu yidhaahdaa jibriil buu la hadlayaa jibriilow waxaan anugu jeclaaday hebel hebele jeclow fayuxibbuhu jibriil oo ah sayidulmalaa'ika malaa'igta sayidkoodii jibriilna inta samada joogta buu u naadiyaa oo malaa'ig leh oo arwaaxdii ambiyada ilaahay iyo saalixiintii leh oo xuurulciin leh iyo jannada intii ku jirtay leh iyo muuldaanulmukhalladuun caalamulculuwi intii ku sugnayd markaasuu wuxuu yidhaahdaa ilaahay hebel hebel buu jeclaaday jeclaada fayuxibbuhu ahlu samaa samada ehelkeedaa jeclaanaya markay samada ehelkeedu jeclaato uma yuudacu lahu alqubuula fi lard qubuul baa dhulka loo soo dhigayaa dadkii dhulka joogaa jeclaanaya mid qasiida ku allifa mid sadaqa u bixiya mid xadradiisa soo siyaarta mid ku dul ooya qofkaas asaga ahi qudbi rabbaani soo jiidasho alle iyo wilaayadii cudmada ahayd weeye waxa ilaahay subxaana wa tacaala intaanu iskugu keenay sheekh cabdiraxmaan suufi ku reer maaha ku qabiil maaha ku shirkad maaha waxa intaani lugahoodu iyagoo gororaynin ay u taagan yihiin saacadaha badan oo ilaahay ay goobtaan ugu xusayaan waxa weeye xadradaas qudsiyadaa daraaddeed sayidii sheekh suufi muxuu ku mutay marka sayidii sheekh suufi wuxuu ku mutay khidmo jaliil ah uu u gutay liixyaa'i diin illaah walitakuunu kalimat illahi hiya alculyaa أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أجزتكم أيها المريدون الصالحون الفالحون الناجحون بقراءة ورد القادرية أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث غدا إن شاء الله برحمة الله من الآمنين فاتح عند فاتح